waxaan markaan aan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka Mr. Jamaal oo aan leeyahay yani warbixinta community-ga inuu wax yar naga siiyo iyo annagoo si fiican u dhageysano war falay tafadal السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا السلام دمانتين علماء الدينك مدحدي الصومالية هوري أخيارتا وسيادة السلادينتا ملاغيدا دمان وأنا السلامي وعن كعور دارين إنه حقا ميكروفون كان ما هاد كليو شقيا إنه أصوح قدوبته لكن واحد مغلي سان معنا ورك عودك قربان يرقادنا إن شاء الله هدي الله يرهدو كسر دوّا مركو ورئيسا حفيز كان كوميونيتينا لو يقان African Youth and Community Organization والله بيتون سنة شرسدي سنة كان الحمد لله وحيال بدن بان قبلنا شعب الصوماليات أو ضدك disability وحبر الشذا عرّت عاد أي أوجسي مهم تاي سيدا كراد وحيالها كوفيك isolation كلا ده ضدك لا عاوية community-gana waxa iskale shakhsi maahan waa shacabka marka muhiimadda ugu horeysa horta waa taas aan ogaano imaanshahan ay soo nimid qayb weyn waxa kale walaalaha Soomaaliyeed ee gabdho iyo wiilal bay soo jira sharafta leh halkan fadhiya ugu horeyso maamuluul baa fadale oo aan naqaano cuntadeeda hooyadii magaalada guur leh oo meel lagu soo dhaweeyay aan ahaano تاسوات حتى عن كوشرنا مستقبل كنا فوق لبص سنة إلا 6 سنة بعد وحرجين إن شاء الله إن نقول كان قدرنا ولا قد يسو غوريو development أو housing development غوريان طبقية ده يعني على قد يسو دانا هل كان نشوفين إلا لامي دنا وحافظ كقدرنا دانا إن شاء الله لعقوا حرجين إن إلا 10 مليون إن يكون كعادة الحمد لله محمد لبي برد بالمرينا هذا ونقول له سويت إن شاء الله taasna waa arin lagu farxo runtii marka waxyaalo waaweyn oo rabnay inaan balka taabano anaga Soomaali hadaan nahay oo hooygeena aan leenahay Portland ay tahay magaaladan inaan gacmaha isqabsano martidan soo dhaweyno dad walaalo isku caylo fiiban noqon insha Allah mustaqbalkeena fognayno meeshan dhisano la wareegno insha Allah carruurteena maamuli doona dad idinka kamid ah maamuli doona qof kuma qorno waa non profit dadku iska leeyihiin sida masaajidada aanu leenahay yaanu lahaan doonaa marka taas insha Allah waa goolkeena fogaad yaa leeyahay meel fiican oo inoo maraysa insha Allah waqti dheer ma haysano waqti dambe waana kulushay meesho hadduu maan meesha karada ku bilowna iyo inaan community ugu yeedno siyaalka iyo xeelad macnaha aan ka qabanayna jiro shaqo socota hal dulqaad insha Allah wala la yiraahdo shirkan ay sunimid maanta waxa weeye soo dhaweyn iyo مع السلامة ولكن عبد القادر دورة أو رنتي كان عسل الصومالية إن ديارة اللي يرادو أفريكان إيرويز أما دول قبو هوتيل أما معها كان عسل الصومالية أو دبوية نسياسية ما إن اللي يراد مركز سنمت محمد يو الليباني يو بلانتان كان قادر النوعية هيد سياسة واللوك والقيبسية واحد سياسة هار كان لوق طلق عليه ماله كوميونيتي أنا ما ده يسكنتها لكن ما كلا درته marka hadii uu Cabdi Qaadir hadafkiisu yahay siyaasad waxaan naga daayay marka waxa yiraahdaa xaraam ay ka tahay marka hadda la feefanay siyaasad insha Allah bayna ugu talagalin waa waxyaalaha inaan ku heshiin karin oo waxyaalaha macnaha insha Allah halkaan dhigay maanta marka insha Allah waa taas odayaal baa jooga aan u dhiibi doono mikrofoonka insha Allah bal markuu ugu horeysa aynu macnaha u mahad celino dhalinyarada Shamow maxamed xirsi liibaan sandere khiyaarta horta soo qaban qaabiyay anigu shaqo ku lahayn ayaga soo qaban qaabiyay ayaga credit u leh anigu amar baleysay waxa la xafiis afar community afar amarku man qaatay aan ku soo dhaweeyay horta insha Allah
adeerkan madaxweyne hore Soomaaliya waqtiga haba yaraada ama ha badnaado laakiin wax yar soo kaco insha Allah oo ku soo dhaweey insha Allah halkaasaan kuu keenaa mikrofoonka aan kuu soo wadaa بسم الله الرحمن الرحيم لمان خيارته شرفت له halkii isugu timid waad mahadsantihiin mahad waxaan u celinaynaa community-gan Soomaaliyeed ee halkan nagu casuntay oo madax ka yahay Jamaal aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan rajaynaynaa inay noqoto community Soomaalida oo ay leedahay oo Soomaalida u adeegta oo siyaasadda soo gelin soo sheegay hadda noo sheegay teeda kale waxaan ku soo dhaweynaynaa meesha saaxiibkeen Cabdiqaadir Dhoore oo marti ku ah meeshan oo soo booqday halkan community-gan Soomaalida oo helaa u joogta meeshan waxaan rajaynaynaa asagana inuu ku soo dhawaado halkan oo community-gan Soomaalida uu siday ku nooshahay oo soo arka meelaha qaarkood halkan kaliya ma aha meelo badan oo Soomaalida ku nooshahay baa jirta inuu soo maro dhulkaas oo dhan soo arko oo wixii warbixina uu ka geyn karo dalkii ka geyn karo iyo Soomaalida meeshay ku nooshahay uu ka geeyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa anoo ku hadlaya magaca odayaasha duqoobay oo anigu aan ugu weynahay wax iga weyn ma jiro nadiir baa iga weyn baan u maleynayaa wax iga weyn ma jiraan u maleynayaa marka ku soo dhawaada dhammaantiin asagana mahad baan u celinaynaa waa ku mahadsan yahay booqashada uuna soo booqday khayr baan u rajaynayaa iyo caafimaad iyo safar salaama hadduu ku noqdo dalkii ku noqdo iyo meeshuu ka yimid aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الله كاجرسي هذا الموسى هذا الله ذا وناكسن waxaan ku soo dhaweynayaa hadana mikrofoonka insha Allah imaamkeena sheekheena masaajidka Abu Bakar Sadiq Sheekh Sharif asaga waxa weey halkan nooga yeedhina insha Allah sheekh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم بعد السلام الحمد لله إله ما تسكله وحبذون شيء لها كل ولا شيء جنرالك وحبذون شيء جمالنا ونور دمستري وهرنا وبلاوي ولكن أنا واسو دوين عبد القادر وأنا سوتينا إلهي وحا أوغو برينا سي نوت سفر كيسي إنو قول إلهي كسيو ماشو أصعدنا إنو وحا جعليه كلا كلمه مرادنا ومراد المسلمين إنه إلهي نصالو أما بعد جمال آدو مهدسن يهي حفلة دان في عن ونو سمي إيو كومونيتيغا وصيدي وأغاهد لي wax siyaasi aan ku jirin which is very good aati aadaan u jeclaa sanay laakiin hal waxaan ku dari lahay insha Allah taala meeshaan aad u qorxoon waxay ku fiican tahay mar kasto oo xaflad Soomaali ama community-geena qabaan inaan inta ku sameysano inkastoo daraad meel yaroo xiriiri ah na geliyo oo aad ugu wareernay soo inta arkaayo marka waxaan rajaynaynaa marka labaad inuu inta insha Allah taala uu soo dhaweeyo tan u labaadna inuu xoogo dadka u fududeeyo madaxa ka garaacin oo lacag badan is weydiinin maxaa yeelay qofka xaflad markiis galaayo xoogo dhaqaalaha aad u cariir ugu yahay marka insha Allah taala aad u mahadsantihiin jamaal si fiican oo sharaf leh oo meeshaanaytu noo soo dhaweeyay inta xafladan ka soo shaqaysinay waxaan leenahay aad u mahadsantihiin Cabdiqaadirna waxaan leenahay welcome Portland ama ana sii dhawaaw wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum جزاك الله خير شريف
markana wax yar aan u yeedho laba eray si uu yiraahdo walaalkeen abwaan cali ku soo dhawow insha Allah mikrofon kulan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم. أما بعد مظلون إيدن سورة بدن لنسكا كوي وليد يدلين فرح ويرنتي والهني دواي ونونو ويهد دواي أني والالكاينة عبد القادر دوره ويلنا كدواو بلدكي والاليو كنولاين قربو وايه الحمد لله كدقنا يعني أولادك كورسة هاينا أذن ودن ويكو كويتاي هنكي هذا ياو كدالدين سورة الله هاي ونقدم فضانا نغن مركي إلهي نبدني كوديك نبدني نغن إلهي أذن نبدكي جاي سفر سلامة هذا أن نبت قبته ومدي هذا كتبتي كتبتي نبت قبان إلهي نبت إسكاكينتوس وإلهي كتوغان كلا إن ومدة صومالية دمانتيه أورشو مدايا عقلشو مدايا والقرشيد يونو مدايا نغدان هاني إسكتالدان قلنشيشي إقلم عدو بن آدم كبهان ودنكي شوق انتوسا نبنان كنولدان إن إلهي كوديك ولن إنك مهمسن oo no dhangeega banaankan ka noolno way waha dhibaato jarta dartiye iyo banaankan nishanti yani adduunku wal qufayla malelan walba dhulshay muusa ka noolada meeluusa ka dhaladay ha ka kori muusa ka noolada iyo eedan suurad badan wala geega banaankan nishani waa dhibaato wadankii kaynahan oo roorsiidi marka ilaahay wada tuugnan ilaahay wadankii kayna nabadniin ku dhikoy إلهي أرلادي تاينا دولة عادل أو وضع قيبسة صومالك وضع دكتة نبت الله كوديك أذن إلهي ويكين كتوغان مرادك الدنيا آخر بين إلهي كين سهلة ويكين لنا حدوها ومركوهورة مركا لما نويكي سغوتيان فرحات قلب فايلي إيواناك إلهي نبت كي جاي وضعن كي صومالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيبك أدبر السلام عليكم أن عدنا أن نديبنو ولا الله الصوماليات runtii buddigaalka u ahaa inay maaragtay soo qaban qaabiyaan shirka wanaagsan isu keenay intana walaala waxa laakiin waxaan dalka kaftamo marmarka qaarkood haddaan isu yeerno si community ahaan aan isu nimaadno waa adagtahay sida ku dhacdo xanteena moogtay reer Puntland baan Cabdiqaadir wuxuu dhigaa faraagasho inkastoo adiga reer Puntland tahay muhiimadda waxa weeye ma ahan kaliya inaan ganacsi iyo soo dhaweyn isu nimaadno isoogu nimaadna laakiin waa inaan anaga dhexdeena si walaaltinimo ah isoogu nimaadna insha Allah intaas aan ka codsan lahaa mustaqbalka insha Allah mar walba aan soo yeerno dhalinyarada walaaladii ahaa oo Maxamed Xirsi iyo soo dhaweynayaa Liban labadiina ku soo dhawaada mikrofoonka insha Allah si aad waqtigiina soo darsataan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan akhyaarta sharafta leh ee meeshaan isugu timid ee ka soo qaybgashay waxaan xafladan maanta ku soo dhaweynaynaa ama ku sii sagootineynaa walaalkeen Cabdiqaadir Dhoore oo nooga yimid Dubai iyo Soomaaliya walaalkeen waxaan leenahay ku soo dhawaa magaalada Portland dadkana aragtida walaalaha maanta ku soo dhaweeyay waa dadkii reer Portland ahaa walow ay u weyntahay community-ga ayko walaalayaasheen marka waxay ku leeyihiin gacmo furan ku soo dhawaa Cabdiqaadir waxaan kaloo ku rajaynaynaa inuu ilaahay nabad kugu geeyo meeshii aad socotay muraadkaagana ilaahay kuu sahlo intaas ka bacdi waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo walaalkay Liban oo garab taagan oo xafladan soo abaabulay qaban qaabiyay gudoomiyeen oo ahaa iyo dhammaan odayaasha meeshaan fadhida ee khiyaarta imaamadeenna adeer Muuse iyo dhammaan dhalinyarada meeshaan fadhida iga soo horjeeda ayaan u mahad celinayaa sida sharafta leh ee walaaltinimada leh ee xushmada ku jirta iyo wanaagga ku jirta uga soo qayb gala xafladan haddana waxaan ku wareejinayaa walaalkay Liban inuu laba eray السلام عليكم aniga microphone waa la iga fiican yahay marka
horta waa markii ugu horreysay oo nin ganacsada ah oo siyaasad ama xildhibaan aan u ordaynin ama siyaasadna dhex gelinaynin uu noo yimi. Waxaan u malaynayaa badina dadku in ay ganacsiga waddanka ka jira iyo wanaagga ka jira wax lagaa weydiin doono waxyaalaha hard selling-ka ah right now. Su'aalahaasna haddii lagu weydiiyo wixii siyaasad ku saabsan haddii annagu dadka ma dhahayno waxa weydiinina laakiin aday kuu taallaa. Annagu waa ognahay fiilkaagu inuu yahay businesska. Anigoo liibaana waxaan dhammaantiin idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh ee martiqaadkii la idiin fidiyey aad ku accept garayseen oo weliba waqtiyadiina qaaliga aad u soo horteen. Aad baan idinku bogaadinayaa. Waxa kale oo halkan aan ka xusayaa ICO sida sharafta leh community badan baanu u dirsanay codsi markii aan rabnay arrintan inaan host garayno. Maasha Allah dhammaantood waa nooga soo jawaabeen laakiin ICO waxay hay'addii ugu horreysay markaan noo soo jawaabtay. Marka annagana waqtigaan ugu yaraa si fiican bay noola shaqeeyeen oona dhaheen markii aan u sheegnay waa iskin garab istaagaynaa. Maantana waad ujeedaan weli waana garab taagan yihiin insha Allah. Communitygana waxaan ka codsananaa in 3 arrimood la taageero: businesska Soomaalida, masaajidada iyo communitiyada. waayo dhammaantood inaga inoo furan yihiin. Marka waxyaalaha localka communityga oo ah waa in la taageeraa. Waxa sharaf ah inaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo ganacsade Cabdulqaadir Dhoore. Haddaan introduction yar idinka siiyo, waxa weeyaan nin North America hore u joogi jiray waddanka Canada kuna noqday waddankii rebuildingka iyo systemka ka socda inuu ka qayb qaato 2000kii markii ugu xumayd oo dad badan ay ka soo baxayeen ayuu isagu ku noqday. Marka struggle badan buu soo maray. Kolley isaga ay noo sharaxi doona. Waa mulkiilaha diyaaradda loo yaqaano African Airways oo waddan ka shaqaysa iyo dibaddiisaba, iyo hotelka loo yaqaano Diplomat. Deegaankana caruur baa u joogta. Maxaan ku raahdaa kolley waa nin reer Portlander in a way. Marka maasha Allah isaga iyo reer Portland waxaan jecelahay inaan isbaro oo kala dhex baxo. Cabdulqaadir Dhoore ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan akhyaarta meeshaan isku timid, madaxda iyo imaamada masaajidada, ragga sharafta leh, dadkii waxaan ka soo shaqeeyo dhan, asalaamu calaykum waraxmatullah. ugu horreyn ilaah baa mahadle, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. kadibna waxaa mahad ballaaran u soo jeedinayaa communitygan reer Portland iyo raggii si qaas ugu soo shaqeeyey: Maxamed, Liibaan, Adeershaamo, Sandheere. maaragtay maasha Allah tabaarakallah, aad bi aad ugu mahadsantihiin. fursad fiican ay tahay inaan maaragtay anoo qurba joog hore ahaa haddana mar labaad lagu soo dhaweeyay si nin dalkii ka yimid oo kale. maasha Allah. alxamdulillah nimayahow, hal message aan wadaa, aan dadka qurbaha joogo aan u wadaa. war dheer ma wadi. sidii lii sheegay aniga ganacsada ahay. wixii ganacsi ku saabsan keliyaan ka hadli karaa. ganacsatada sideeda waxaad hore u maqasheen, waxaad jirto ganacsato aanan jecleen inuu dalka dawlad ka dhasho. aniga kuwaas kuma jiri, raggaasna ka madmadnihin. ganacsato dawladnimo rabto, canshuur inay bixiso rabto, dalkan inuu dawlad iyo horumar gaaro ayuu ganacsigu ku jiraa. mabda'a dadkaas aaminsanaan ku jiraa. maasha Allah tabaarakallah. marka message-ka idin wada waxay tahay, dalkii wuxuu u baahan yahay maskax ideology cusub haysato in dalkii lagula soo noqdo. waa garanayaa dadka meeshaan joogo dhan, Soomaaliyo dhan madaxeedu waxaa ka guuxaya ganacsi. meeshaan maaragtay waa ku wareegay dukaamo iyo mid xalaalo iyo maaragtay moolal iyo waxyaabo badana
furfuran laakiin xaqiiqda jirto waxay tahay generationka iyo dadka idin sugaayo mabda'a ah dalka markuu fiicnaado ama uu wanaagsanaado ama uu amni noqdo ama uu wax noqdo ayaan maaragtay bal ku noqon doonaa mabda'aas in laga soo hormaro oo sida ugu dhaqsiyaha badan leh dalkii loo maalgeliyo maskax iyo maal intaba wuxuu uga fadhiyaa dadkan qolaba mar bay soo socotay meel bay soo gaarsiisay marka runtii meel fiicanay maraysaa hadda meel fiican oo ganacsiga Soomaaliya maraya ani muqdishoan joogaa muqdishoan ka ganacsadaa ganacsatada muqdishoan ku jira meesha ugu fiican staaga waxaan u malaynayaa kullee waa akhrisateen Africa East Africa dhan waxaa laga liid gareeyaa maaragtay staageeda magaalada muqdisho waa laga liid gareeyaa marka waa ilaahay mahadiis waxaan idinku guubaabinayaa in website-yada iyo TV-yada ka fiirsiga in xoogaa yar step labaad la qaado calal aqal xataa wax weyn ay noo tahay haddaa booqashada nagu soo badisaan oo aad soo booqbooqataan oo hoteelada wax ka degtaan oo diyaaradaha soo raacdaan oo maaragta aad timaadaan taa xataa qaybay ka noqonaysaa maaragtay fursadaha ganacsiga marka waa idinku soo dhawaynayaa wax siyaasad ku saabsan dowladnimo waxaan ahayn oo caam ah anaga kama hadlaayo insha allahu tacaala wixii ganacsi oo su'aal oo si qaasina waa ugu jawaabi karaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada walaalaha Soomaaliyeed aynu waqti yar siino dad badan bay si walaalkay Cabdiqaadir sheegay maskaxdooda ka guuxaysa inay ganacsi noqdaan ganacsi ka sameeyaan Soomaaliya aniga baa ugu horeeya marka su'aalaan weydiino kulli waxaan u maleynayaa asaga diyaarad oo hoteelo leh lama jaan qaadi karno oo naga horeeya oo naga hor dhaqaaqay laakiin siyaasi ganacsadana sidiisaba kuba sheegayo duldulalada moogtahay bal su'aalo adag aan weydiinay isku dayna insha Allah waa idin furan yahay insha Allah cabdiqaadir waxaan maqalnaa dalka in wealth badan laga sameeyo securitiguna aad u xun yahay marka dad badan oo meeshan jooga waxa dhib ku ah inay fahmaan meel securitygeedu xun yahay see wealth iyo tijaarad looga sameynaya marka bal arrimahaas xoogaa details yar ka bixin kartaa sida businesska iyo securitygu isla jaan qaadi karaan بسم الله waxaan u malaynayaa su'aasha liibaan Soomaaliya maaha muqdisho ka hadlaya hadaan qaldaneen maxaa yeelay Soomaaliya gobollo badan oo nabadeeda iyo ganacsigeeda oo aad iyo aad heer sare u yahay ayaa jirto laakiin haddii su'aasha ay ku saleysan tahay muqdisho yes muqdisho way jirtaa in maaragtay nabadda ay security-ga uusan ahayn boqolkiiba boqol laakiin compare of nearly 4 million people meelay ku nooshahay karaamiyada ka dhici karo magaaladan waxa ka dhaco oo Portland iyo New York isku mid ma noqon karaan maxaa yeelay meel dhaqaale yaalo oo maaragtay dad intaas population ay joogaan waxa way ka dhacayaan anaga dadkeena ganacsada waxaan raanaa waxa ka dhaco muqdisho qaraxyada iyo waxyaabaha oo joornaalada lagu soo qoro minor ay nala tahay wax minor ah qof la dilay meel walba lagu soo qoraya runtii wax weyn waaye laakiin markii loo fiiriyo magaalooyinka karaamiyada ka dhaco oo aan muqdisho ahayn sidaan aaminsanahay waa meel maaragtay wax dhibaatada dhacday iyo ganacsiga socdo wax aad u kala fog waaye wax aad u kala fog waxa uga jirteen waagii hore ganacsiga Soomaaliya wuxuu ku xirnaa alaabo laga keeno Dubai iyo alaabo laga keeno Kenya labadaas meel ay noo soo mari jireen ganacsiga ninkii wax keensanaya ama wax imaanaya laakiin hadeer runtii ninkii og maraakiibta degada safay ku jiraan taariikha la siina date hebel ayaa xiran karta alla badu ku sii jiraya ma soo dhaqaaqi karo diyaaradahana sidoo kale airboorada dadkii kulay visit ku yimid arki doono runway-ga
waa booked off waaye waxaa la rajaynayaa haddeer schedule inay ku yimaadaan waxaa maqli jirteen New York iyo London inuu diyaaradda hawada ay nus saac kusii wareegayso ilaa ayadoo soo degin heerkaasay muqdisho walow aan hadda weli habeen aana bilaabino waqtiga uu aad u gaaban yahay waqtiyada garoonka uu shaqeeyo haddana waa meel zaas saxmadeeda u ah oo ganacsigeeda iyo maaragtay businesskeeda uu saas u yahay maasha allah tabaaraka allah waxaas laga sheegayo haddana hooshi way socotaa oo ganacsigii iyo businesskii gobolladii dalka oo dhan isku xirmay oo maanta maaragtay diyaarada u kala gooshaan gobol iyo almost degmo ay diyaaradaha u kala socdaan ganacsiyadiina Soomaalida heerkeedu waxay gaartay inay si toos ah China iyo Turkiya iyo maaragtay wadamadaas dibadda ah toos maraakiibta inta ugu yimaadaan magaalada Muqdisho soo xirtaan oo maaragtay supplier u socdaan iyo gobolada intiisa kale oo dhan marka maasha allah security-ga waa wax jiro maaragtay qiimo weyn ku fadhiyo nabadda nolosha qaybay weyn ka tahay laakiin Muqdisho uma fadhiso security xumo ganacsigeeda uma fadhiso uma xayirno waxaan maleynayaa waa ka kaafi su'aasha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بيدن جالسين ميكروفون الآن waxaan ku weydiinayaa laba su'aalood oo ganacsiga ku saabsan ilaa siyaasadda aan laga hadlin ما شاء الله تبارك الله labada su'aal oo odayga weydiiyay waxay tahay midi dad baa ganacsataa waxay keenaan alaabaha qaraxa iyo waxyaabahaas runtii waxaas hadde su'aashaas aniga ma ka jawaabi karo maxaa yeelay aniga ma ihi dadka oo maaragta baaristii waxaas ku jiro laakiin wixii kolley way yimaadaan ama dalka banaankiisa ka yimaadaan ama dhul ha soo maraan ama aashaas macnaha dadka muslimiinta ah markay meel iskugu yimaadaan sidoo kale oo farxad iyo khayr la iskugu yimaado waxaa jiro wax la yiraahdo farlal kifaaya macnaha farlal kifaaya waxaa la yiraahdaa macnaha markii sida camal ummadda meel iskugu timaado inay isfaraan khayrka waxay xunaan iska reeban marka waxaan rabaa farlal kifaayasna iska dejino waa lagu xisaabtamaa wax sharci ah waaye marka insha Allah ta'ala waxaan ku soo koogaa faralka kifaaya ilaahay ka cabsano meel kasta baan joogno ittaqullah haythuma kuntum qof kasta ma uu joogo adduunyada ilaahay ha uu baqo marka insha Allah ta'ala taasan faralka kifaaya aan uu gaabsana marka su'aasha aan weydiinayo Abdul Qadir Doore waxa waaye maadaama as warbixin naga siinayo macnaha arrimaha businesska marka aniga Sheekh Xasan ahaan waxaan ahaan businessman aan ahay waqtigii hore oo dawladda dhisneed insha Allah alxamdulillah inaan ka gadno inaan dayactirno marka haddana aan macnaha dib aan u gadno marka waxyaalahaas aan macnaha ganacsanayni dibida wax ma u qaadaynin waxna ma ka keenaynin laakiin xamar gudihiisa xaafadaha xaafad badan sida Madiina ugu badan tahay dhul macnaha guri badan anagna soo maray aan gadnaa jiro aan sameeyni marka businessaas oo kale hadda xaaladiisa Abdul Qadir nas noo waramaan rabo ku saabsan dhululka oo la sii gadaayo la dayactiraayo haddana la sii gadaayo marka insha Allah ta'ala oo la diyaarinayo dadka banaanka ka yimaadeen su'aasha san bismillahir rahmanir rahim Sheekh Xasan waa maasantahay business kan oo wuxuu ka hadlay oo maaragtay real estate ka hadda ogtiin iyo hadii kale banamayo xamar waa sold out way hal banaan hal boos oo banaan ama baac maybe dad oo intay gateen oo sugayo muddo kadib inay lacag very extra ku gataan waa possible laakiin qofkii yiraahdo xamar dhul ha laga raadiyo hadeer nimanka dalaalayda ama dhulalka gado waxay ku sheegayaan ceelasha biyaha meel la yiraahdo waa maqasheen ceelasha biyaha iyo jasiir dhanaane agteeda meel banaan meelahaas hadda wax banaan ee jirto inta kale waa sold out way wax la leeyahay la gatay dadkiisa maaragtay ay ku talagalayaan inay dib u dhistaan ama u maalgashtaan meelihii aad aqoon jirteen maaragtay xaafadii la yaqiinay hodan iyo howlwadaag iyo dabaqyada ka socoto iyo dadkii maaragtay apartmentiya loo gadaa sida hadda aad meelaha Dubai iyo waxyaabihii lagala yimid dadkii oo Dubai joogi jiray ama ganacsiga real estate ka Dubai ay sameey jiray in Muqdisho waxa ka bilaawatay hadeer in apartment laga gado 2 bedroom 3 bedroom 4 bedroom
apartmenti la gado waxaas Soomaaliya ma jiri jirin dhul oo maaragtay wareegsano vinta bar vinta iyo tradish bar tradish jiri jirtay hadda waxaas waa dadkii waa maadaama ay wixii dhan sold out noqdeen ninba vinta bar vinta wuxuu ka taagay dabaq oo maaragtay oo 8 dabaq 10 dabaq 12 dabaq oo basement leh oo maaragtay gymkiisa leh oo wixiis dhan leh kuwa kalena way ku socdaan waxaa jooga bangiyo oo dhiibayo maaragtay dhulka qofkii la yimaado u dhisaayo oo maaragtay loanka siinayo oo aan interest waxba lahayn marka state real estate ki Muqdisho marka warka soo koobo sold out waay waxa banaan ceelash biya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد القادر وحواي أنا يقصوا اللحدي محير علاش بيها مركا ولا له وحن شيء جاي هرتا كل يعني هرتا إن محنكر هذا ما كأي جليان علاش وحواي ماشي كلي هذا أو دجان هان وقف عن خف بين آدنا ولسانكرو وحوين وتريسا محيالي مالها كلا يعني تريدش برفنتي وحاس لكن فينتي برفنتي الكسابسن أو رخيصة أو محنكر هذا بين آدم كان آد وحوان في علاش كويا لا هدي ربتين وإلى سوء حرير كتير وإذن رادين كان هدي ربتين مركا إن شاء الله إن محلي هذا أنا واتجي وكسور استقول الحمد لله معنا وحياة بكلنا واجران مركا خوف كير وإلى سوء حرير كرا إن شاء الله برنامج كنا كاسم كسور قبلنا وحاولي وهالك جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد القادر ولا واكو سلامني سو دواو إن شاء الله تعالى سؤال عن قبو أولا عبد القادر ودينا waxa waaye wadanku wuxuu ahaa gobolada qaar waxa ka jiray dekedo dhisan oo habaysan oo capacity leh qaarkoodna ma leh ganacsatada Soomaaliyeed isku dayeen inay meelaha aan dekedaha lahayn xuduudna la leh Itoobiya oo يعني سيدي هذا سومالي لأنه كل بربرة لوجا سمية دكتة وحاويات كإمارات كو أي كسمستين ويقول تلاقي لها يعني أصب على جريان إثيوبيا إن قب ماله سيدا كلا جرع ذا كلا بدأ مال قشدي أو سوماليا وكان عستا أيام مال قشدي مجدا مركا قرشة كان عستا سوماليات especially مجال اللي رادو هبيو كلا أو أد وقولوا إثيوبيا أهانا لهاد backbone u ahaan lahayd goboladaas inay maalkooda geliyaan oo ay maal gashadaan inta sameeyaan feasibility studies wixii ka soo geli kara dadkay u khidmaynayaan oo ay maaragtay u shaqaynayso dekedu inta daraaseeyaan inay deked nool oo wax qabad leh ka dhisaan ma isku dayeen intaan ka ahayn hoteelo iyo wixii ganacsigii bagaashkan oo kale ganacsi weyn ilaa dadkii lacagtii way haayaan مثلا محمود جمعاله وكله وذاك محمود جمعاله لعقت ميلو جيو لا يه مركا dad badan ajiro saasa oo bilyaneer ah oo haday lacagtan meeshaas gali lahaayeen ka heli lahaa kunjibaar marka qorshahaas ma jira واي بسم الله نيو سؤال في عن واي دكد ما jirta oo ka baxsantii Muqdisho oo tii gobolada ma jirta taa horta jawaabteedu waxay tahay dekad baahideeda waa la qabaa oo way jirtaa laakiin waxa ka horeeyo in dekad la maal geliyo waxa ka horeeyo relationship ganacsiga horta inuu isku furan yahay markii la garto baahidii ganacsi inay tahay oo qofka investmentiga galaya waxaad ogtiin Berbera dekada Berbera in ay maaragtay ay shirkadii oo imaaraadka ay qandaraas ku qaadatay markay qaadatay qandaraaska ku qaadatay kadib ayaa waxa la ogaaday dekedan hadii la dhiso oo la sameeyo kadib waxa baahida maaragtay u qabo la rabo in loo suuq geeyo waa xagee Ethiopia marka hadaysan relation jirin way adkaan lahayd marka waxa ku qasbanaatay kambanigii oo contract qaatay inuu involve ka dhigo Ethiopia oo percentage ka siiyo dekadii si
meeshaas wixii ka yimaado oo dadka ganacsatada Etoobiyaanka meesha ay ka soo degsadaan marka dekad in inta la iska sameeyo oo aanan maaragtay ganacsi relationship jirin waa runtii lacagta waa la hayaa dhaqaalihii waa ready maalgelintii wixii oo dhan way ready laakiin waxa ka horeysa marka hore in relationshipkii ganacsiga oo meeshii loo suuq geyn lahaa ee diyaarsan tahay haddeer way ka jirtaa waxaa daa ogtihiinba waxaa samaysan warshad weyn oo cusbada adduunka dhan hataa laga rabo in laga sabaal garo almost roughly niman ganacsato banaanka yimid ayaa investment xoog la geliyay almost $10 milyan la geliyay in laga dhoofiyo cusbada adduunka loo dhoofgeeyo loogu talagalay marka warshad oo maaragtay Chinese iyo adduun oo dhan ka shaqeynayaan waay hobbiyaa laga sameeyay taas dekadii in laga hadda way shaqeysaa oo maaragtay shactarra wax lagu keenaa baahida gobolka kaliya ay dabooleysaa in la maalgelin xoogaas la geliyo waxa ka horeyso in horta relationkii ganacsiga oo dhismo Ethiopia iyo gobolada dhexe inay isku xirmaan dad oo kalsooni oo wax lagu kala qaadan karo wax lagu kala gada karo wax loo dhoofin karo wixii la keenay nabad ay ku bixi karaan taas horta abuuristeeda ka horeyso intaan maaragtay conclusion-kii la gelin madaxana lagu hayaa runtii waa wax oo jaal nin walba dawlad haday ahaan lahayd iyo hadii dadkii gobolka ahaan lahayd intaba madaxa lagu hayaa in arintaas la hirgeliyo waqtigeedana imaanay insha Allah ta'ala assalamu alaykum hal su'aal oo kale hadaa qabtaan aan ku darsan kartaan haddii kale iska soo koobna insha Allah abdi ganacsada Portland ku soo dhaweeya abdi deerow السلام عليكم أنا مقعي وعبد الديرو عبد القادر أنا كسو دواو مرابات أنا محايا تو سؤاش عن قبو حاواي أنا سانو أغنى هاي أنا وحا قد كبحي ما دام أدينا كم تاقنا ستدي صوماليات شلنكي صوماليا والواي مركا مليدي هين دلت أو ganacsadaa oo hore ugu hadlay in shilinkii Soomaali soo celiyaan hadda waxa maqalnaa in lacagtii qalaad oo la isticmaalay oo dollarka ahayd in $50 la diiday wadanka Soomaaliya oo kaliya marka ina ganacsatadiini ma ka hadasheen ma ka fadhiisteen in lacagtii Soomaaliya la soo celiyo assalamu alaykum ما شاء الله تبارك الله وما سنيا ديرو شيلين سومالي runtii shilinka Soomaaliga waxa waaye wax howl dawlad oo taalo waayo central bank laga rabaa central bank oo Soomaaliya waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu soo noqdo ay maaragtay dawlad Soomaaliyeed ay value-gii shilinka Soomaaliga soo celiso laakiin runtii ganacsatada door weyn ay ciyaartay over 20 years inuu shilinkii wili shaqeynayo kunka shilin inuu wili shaqeynayo waxyaabaha yar yar ka yaanyooyinka iyo basasha iyo waxa lagu gato waa shilin Soomaaliya oo san ahayn dollar oo san ahayn suuqa waxa looga soo adeegto grocery oo suuqa lagu soo adeegto iyo dadka maaragtay walaah yar baawurta basaska waxa lagu raaco waa shilin Soomaaliga marka shilin Soomaaligaas waxaan dhihi lahay maaragtay sharaf weyn u tahay ganacsatada oo dawlad la'aan intaas celisay shilinka Soomaaliga ayadoo central bank Soomaaliya central bank jirino lacag soo mareyso bank dhexe aysan jirin ina weli ay shaqeynayso midana $50 la diiday waa runta way jirtaa $50 waxa soo gala magaalada lacag badan oo false ah oo $50 u badan konton oo badnaayeen marka waxa la weli la kala kasi waayay xataa 50gaas falsiga ah inuu xataa mashiinkii wax lagu baarayay ay mareyso marka go'aana la qaatay oo la yiri niyo 50gan meel kale la aad jeebka iska hayso door 50 aan isoo martay Dubai iyo Kenya ka sariftay marka 50gana dhibkaas oo keenay maan wax kale ma jirin lacagtaas falsiga oo soo gashay darteeda ayaan maaragtay loo joojiyay shilin Soomaaligeena waa saas waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala
in maaragtay central bank banka dhexe oo dowlad ah dowladda ayaa lacagta mas'uuliyaddeeda iska leh shilinka Soomaaliga ganacsato male ganacsatada waxay waay hirgelinta inay maaragtay ka shaqaysiiso lacagtaas kaliya ayaa waajibkeeda saaran ay tahay ayadiina wili waa wadnaa insha Allah taala ragga ka shaqeeyo sarafkii maalinba sidii stock marketku isku bedelay shilin Soomaaliga $100 maanta milyan iyo bar milyan iyo 12 marna waa dhaca marna kor u kacaya marka taas xataa waa role weyn oo maaragtay sharaf u ah dadka ganacsatada maaragtay in shilinkii Soomaaliga wili shaqeynayo ma sha Allah خطرتها كلية لوجا بقى فالس بدنا صلاة أن أدبر كمان علنا مرلبات يوم سدحات بقى خيارة الشرف تلا هالك سوق تيم الدمان أن سوينا كسن شركة إنه سوق قابلي وحنرى لها أمريكا أودم بيسا كسر دورت ولكن اعتقادهم مقالة ودقنت هاي reer baa ku degan ma ahan meel aad maartay qurbo ku tahay annagana xagan kugu imaan doonaa insha Allah haddii dhalinyarada qaarkood yimaadaan oo tiir ka go'o muso diyaaradda ma soo saari kartaa Cabdinaasir baa hadday fiirinay reer Portland Liibaan ka wada hadalnay waxaan eri maaragtay Portland haddii magaalada Muqdisho haddii yimaadaan ninkii ID Portland wato in special discount aan ku siino hotel haday rabaan inay joogan iyo diyaaradda from Nairobi laakiin mid conditionka waxay ahayd oo ku xiray ID-gaaga Portland inaad wadato way ku siyaara organ ha mid siyaar la hadaa la timaado cabdi deero anigu ID siyaar buu ID ku leeyahay moogtahay ka asagoo kale lama ogolo marka waxaan anagu hotelkaas ku ogeyn hadda isagoo diyaaradda ku daray bas localka macnaha bas marka contactigaagana waxaan ka helaynaa Liibaan adiga ka helaynaa بس كونتاكتي أنا ودليرة خيرتهم ويد حدك عطانكي دحبك عبرتي إزيقي حرية مثلكي كعام بحو إن شاء الله مرضى الحرمو ربي سوحير عربادو سير عربتيو وبحب دينار عرفي دونتا عليه بلوغي حدك عطانكي إحبك عبرتي إزيقي حرية مثلكي كعام بحو إن شاء الله مرضى الحرمو ربي سوحير عربادو سير عربتيو وبحب دينار عرفي دونتا وعزيقادي مكان سوحيلي إركوي بفريد وكوضع عاقر نقن أولاد لدفيودان إن شاء الله مرضى الحرمو ربي سوحير عربادو سير عربتيو وبحب دينار عرفي دونتا